السلام الله عليكم ورحمة وبركاته ولا الله كحرن جنال كينا جنال كحكمة تيوب أي يوتيوب بسود هذا المقالة طاول يعني كان المقال قبل كل ما تعد جنال كحكمة سبسكرايب صار فيديو أنا لايك صار أدي أدو ما سنت طاول يا المان تو حنيدين تو قبل دونا تقنيمو أي سي كاميرا ضبطي فتاس أو سلايفا وحب عين ninkan aad arkaysaan wuxuu ka faa'iideystay sidii gabadhu inta ay baansiinka dhaansanayso isagoo u jeeday inuu gaadhigiisa xado laakiin gabadha oo muujisay adayg ayaa ku booday gaadhigeedii xagga hore iyadoo ka foqi weyday ilaa uu ninkii uu waayay meel uu dhaqaaqo markii dambena naftu ay ku kaliftay inuu naftiisa la cararo ninkan aad u jeedaan ma garanayo wuxuu ku wado qacanta waxa uu ku qarinayo laakiin sida cad waxa muuqata in uu rabay in uu xado meherada laakiin waxa uu soo ogeyn in uu ahaa shaqaalaha mid isaguba hubeysan isagoo si dhaqso ah la soo baxay xabadii uu watay kuna qabtay ninkii tuuga ahaa xagaana ku hayay ilaa inta ay ka imanayeen boolis kadibna ninkii waxa lagu dhigay gacan labadan tuugna waxay ku guuleysteen in ay soo jaraan albaabka meheradan oo ay gurtaan xabad mootooyinka taale oo inay reebinba wax ninna waxa ay xadeen boosada ay gabadha wadatay laakiin nasiib wanaag waxaba meesha marayay askar waxay u egtahay inay maalintooda ayna ahayn maalintii saxda ahayd ama ay nasiib xumaayeen laakiin waxay ila tahay way mudan tuugnimadani waa mid la yaab leh runtii weliba waxaan oodadoo aadka u tiro badan oo isku soo kaashaday in ay xadaan meheradan weyn ee lagu iibinayo hubka waxay la tahay inay ahaayeen dad aad u soo tabaabushaystay oo qorshahooduna aad u dheeraa maxay kula tahay inay ku samayn doonaan wax aas oo tuugtan waxay gaadhka ku hayeen ama ay isha ku hayeen ninkan markii uga soo baxay bangiga isagoo soo qaatay boorsad ama bacay lacag ku jirto kuna qasbay in uu gaadhigiisa galo kana soo saaro lacagta uu hayo tani waxay u muuqataa tuugnimo aad iyo aad looga soo baarandegay iyagoo tuugtani ah kuwa soo xaday bahashan cagacagafta si ay ugu soo jibiyaan ama ay ula baxaan ATM-ka lacagta ku jirto waxay la tahay inay muddo badan isa soo diyaarinayeen inta ayna hawsha ninkan fadhiya meesha wuxuu leeyahay qalbi geesi ah run ahaantii iyadoo meesha uu soo galeen tuug aad u fara badan kana cabsiyay wixii dad ahaa ee meesha fadhiyay laakiin isagu si baraar la'aana wax jixinjixa kama muuqdo meeshiisa uu iska fadhiyay si tartiib ah xitaa wuxuu bashadanayaa sigaar cajiib isagoo iska daawanaya wixii ay sameynayaan meesha sidii in ay riwaayad tahay oo kale camal waxay isticmaaleen labada nin gaari si ay u jabiyaan ATM-ka lacagta markii hore run ahaantii waxaan u malaynayay inuuna ATM-ka jabin laakiin sidaa cagsigeed ayaa dhacay markii hore waxaan u malaynayay in uu orodkiisa tijaabinayo si uu u fuulo gaarigan traaga ee weyn laakiin waxa uu u baahnaaba in uu soo xado mid ka mid a laxaha gaariga saaran waa wax la yaab leh runtii daawadayaal fiidiyoga maanta intaas ku eegaya intaan ku kulmi doono fiidiyo lamid ah fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe saar fiidiyogana like saar waxaan idin leeyahay peace